halkan markay joogto xalay dhalay baa laga noqday dhammaan wixii hore jiray ergooyinka ay u dirsadeen dawladiska Soomaaliyana heshiis buuxay soo qaateen heshiis buuxay ka soo qaateen dhammaan wixii dhacay waxaana lagu qaatay heshiiskaas maadaama waxa dadka markaas ka dhaxeeyo ciriq ah iyo wixii la waayay waxa la waayay ay weynaayeen oo ah dawladnimada way heshiis bay ka qaateen 100% ah waa taasi waa sababta aan maanta beeluhu meelaha ay kala joogaan aan loo dhaafi karin qof walbana meeshuu joogo ayaa home u ah oo ay tahay inuu joogo sidaas awgeed dawladdii way burburtay ciduna dabina oo ma ahan warka inaad fahamtid baan rabaa saraakiisha xilligaas joogtay oo hadda nool iyo kuwa dhintay iyo cid wax loo haystaa ma jirto waxaas xalay dhalay baa laga noqdo ciddii rabta marka inay ka sheekaysa kiis ka samaysaa micnaheedu waxa way reer bay tuma u abuuraysaa oo u socotaa annagu cid wax uma haysano reer waqooyi waqwa ayaga halka jooga 35 sano dawlad sheeganay ayagana waa aragtay meeshay ku dambeeyeen wixii ay ka cabanayeen bay iyagii faleen annaga therefore cid aan wax u qabnaa ma jirto beelaha Puntland dhistay oo diriya daarood bale haatan cid annagu aan wax u qabno wax ka tirsanayno saraakiishii kacaanka wixii ka nool iyo wixii dhintay ba annaga maanta cid aan dabina noogu oo miiska noo saaran aan leenahay aan la fakadaba sidanaa ma jirto aslanba qofkii deegaanadaas ka soo jeeda waxaas ka sheekaynayana aragtidaas dadkaas kuma matalo Soomaali way burburtay way isqalatay way isdooxday qofkii marka wixii ka sheekaya la soo dhaafay waa dooxato hadduu reer hebel buu hadda u socdaa iyo hebel therefore annaga ma matalo deegaan ma matalo dal ma matalo asagii khaas ku ta meeshaan u socdo waxa weeye haddii laga sheekaynayo iyo haddaan laga sheekaynayninba ciddii ka sheekaysa ayaday khaas u tahay annaga naguma matalo dad cawdo oo balaayo inta la isdilo ba haddana inta barqadii la isgalaa la islayn jiray laakiin waa laga soo gudbay waxaas annaga baabkaas waxaan soo xirnay 1998 baan soo xirnay waa ka soo tagnay Soomaalina shuruuc iyo qaynuun iyo dawlad baan la dhisanay full stop wixii inta ka soo hara annaga ma ahan ciddii wax sheeganaysa hargeysa xabaala laga qodaaye anigu intaasan maartay oran lahaa cid aragtideedana waxa weeye cidna ma aragtay hadda anigu maartay kuma danqaynine waa aragti guud oo aan jeedinayo qofkii raba inuu maartay sameeyo wax kale asagay u taala waa idin soo ceshay raali ahada waa halkaas aan anigu kaga baxay waa mahadsantahay inaad arko qaado arka muddo saarna arko qaado waa mahadsantahay inaad assalaamu alaykum dhammaantiin qaado arko hadalka maana lahaa mase arka may arka siinaya arko qaado lishaan dadkan u qeybinaya qaado arko inaad waa maasantahay waxa weeye horta walaalayaal wada salaamaya dhammaantiin hadda wixii de hadalkii waa dhamaaday nima labaan odayga ma garanaysaa ninka odayga sheekada soo dhameeyay raggan hadda waxa isku hayaan baba iska yaro de waa u jeedaan wixii sheekada meesha laga hadlay walaalayaal ma baan sheegaya aniga victim baa horta idin ahay hartiyo TikTok ama TikTok kuma badni TikTok caadiyana maahi laakiin waxa weeye meel alla meeshaan galo waxa weeye aad baa la qabsadaa beendi sheegmay galabta ugu dambaysa aad baa la haystay aadaas oo ah kala fooqan dadka walaalaha iskala fooqaya ee hartiyad iyagoo jifa ah walaalayaalow hadda aragtaan idinka maga shakhsiyaad in kala fooqaya midnimada ilaashada iska qabta saas kale isu wareysta haddii shaki idin kala dhex galo waxa weeye sideedana taariikh haddii dib loogu noqdo inkastoo la dhameeyey waxa weeye rag waa isqabtaa siyaasad baa la isku qabtaa xool baa la isku qabtaa qabiil baa la isku qabtaa waa la islaayaa waa la kala waran jidaa waana la heshiiyaa waxaa dhalay nin ciil qabaana meeshaan ma jiro Soomaali meel kasta ay tahay daarood hawiye iyo magaranaysaa ciddi kale ciil qabtay jira laakiin kolley hawiye iyo daarood iyo marka qabiilada la yaab kolley anuu cidna ciil ma qabno ma garato walaalayaal waxaa idin sheegayaa midnimada anigu horta meeshaan waxay la tahay foofani bay la tahay walaa been sheegay waayo waxaan kasoo xabeeray timaliya balta caawa yaaban habe inaad welcome ina dhacdaan ijaabi soo qabso ijaabi waa ina dhacdaan meel waxaan soo maray leeyahay bal tago walan moogtay marka waxaan ciyaar bay leeyihiin moogtay markaan fiirsho haddana saas ay tahay markaan arka shakhsiyaad ay serious shakada ku tahay oo dhibsanaya oo cabanaya oo qabiil ka cabanaya waliba qabiil aan anigu ka dhashay oo ehel ah waa dhibaysaa gubaysaa waliba dad ehel ah oo action ku jiro oo struggle ku jiro oo hawlgal ku jiro oo cadow ay sayaan walaalayaal marka waxa weeye hal ma garanaysaa hal dhowrsado inkastoo qof walba mobilkiisa uu leeyahay oo meesha dadkuna isku maartay shanta farood yahay oo uusan isku fikir ahayn haddana waxa weeye walaalayaal
waxaa fiican in la is ilaaliyo oo magaranaysa la is ceshada xataa haddii qof khaldamo maaragtay oo nin walaalkaayo oo magaranaysa halgan ku jira shakhsigii xaniyaa ku dhigaya aad aragtid inaad ka qabatid oo magacaaga ku qaraabanaya aniga shakhsiyan aniga waxaa la yidhaha magacayga cabdiqaadir xasan calaashaa la yidhahdaa isma qariib wuri farax degan cali khalaf ilmaadayaal waxa weeye aniga nin igu matalaa ma jiro oo harti ah in qabiil hartiya wax laga sheego ama la caayo hadduu dhulbaanta yahay hadduu majarteen yahay hadduu dashisha hadduu qabiilku raba ahaado aniga waxa weeye nin hartiyaanahay in daaradana taasaan aaminsana puntland iyo khaatumaan aaminsana ninkii magacayga ku hadlaana iguma matalo qofkii hadlaya tisa hadlo wala insalaam assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh min nuna ila shada maariyaalo waxay halka uga darso walaal please hal mar Charles halka uga darso please ha soo dhige u kaadan soo dhige arka uu ka baxay wax yar oo taariikh xogaa wax xeqsanaan haliga galabta lumbaan tol arka u kaadan dhamaysta qalbiga suuga dhamaysta soo qaba suuj adeer u kaadan dhamaysta qalbiga u kaadan dhamaysa arko adeer macaan waa dhamaystay waaba iska xogaa dhigaaba kacay wallahi way galabta meel aan soo maray waan xasuustay moogtahay oo dadka ma adeer soo qaba amaana soo qaba ana u banaynay ay dhimale siki adeer ma istaji dhimale waxa iska dhamaanayaan amaale wuu dhamaystay waxa iyo kala horta wax yar taariikh yar baan waxaan ku darsanayaa eray yar baan ku darsanayaa inkastoo eray dadku waxaan rabaa anu ma ahan taariikhdan ka sheekeynaya ma ahan inay tahay qabyaaladii dhibaato tahay markii dagaalkii dhacay 1991 إلى 1992 دقائق كده سندس مقصية سندس أنسية وكذا وحير سندس على ده سعيد أنت أصلا قدر سريع واحد ما وحش يا عبد الله ده كان قبيل يعني كذي عبد الله ده كان قوادارو سندس بعتقد سعودي بالله أنت أنا أقول ما يبليس أنا أقول ما يبليس أنت أصلا قدر سريع أنا توان هنقول علينا أنا ما نقول جاي هاي الدارات شو ده قصة قصة بالبانتي عمر محمود بالقارت السوق قال لي دد أو وحبة فانسلين وطول كان وانين أنا نتوان هالنجيل وهذا التاجر أيا كهلنا 1 minute نعيمة 1 minute بليز وحي لها تاريخ في روح كهلا تاريخ يا أباها واحد تاجر كهلنا دد كل السوق دري ما هذا لو قلبي وكوس عليا سندس بس حارس سندس يتقاضى سندس نعيمة ودا نعيمة سواك فهي waxaan tusayaa markii dhacday waxa la tiriyeen la kala carray waxa jirtay laba jifo oo daarooda oo wada degta oo aan isu soo galin baa jirta colaad ka dhaxaysay qixi koor oo ninba ninkuu arko uu bixin tirin baa jirta maxay labadaas isu soo galeen maalin duhurkii baa jifo labadii jifo daarooda mid kamid ah oo dhaan wata oo intaas horjo dhaan kontar iyo 7 mise kontar sirti dhaan wata baa ceelkii kuwa kala joogan ku soo aroortay waa ka hortageen labada waa hubaysnaayeen kuwii ceelka joogay nimanka xabada ku rideen nin baa xabad uga dhacday kuwii kale xabada ma ridin qacmaha ka rutaageen colaadna intaasoo dagaalo magacyada dhex maray dagaalo magacyada dad badan halkan garanaya hadaan sheego laakiin aan sheego ma rabo maxay dhaheen nimankii marka taariikhda waxa dadka inay cudud suuqeen baan ku sheegayaa waxay dhaheen niyow nin baa oday baa hadlay niman kale oo daarooda kala dhexdhexaadiyay oo laba jif ahayn nin baa hadloodayaasha kamid wuxuu dhahay niman yahow saddex shay nagu daayu dhah horta wuxuu dhahay xabadina xabad ka daran baana wado dhahay tiina mid ka daran baana wado shay u dhahay nagu daayi oo dad tiina mid ka daran baana wado midna nagu daayu dhahay wuxuu dhahay waan dad waxaan nahay waxa la tiriyay niman waxaan nahay markay wiilkaas shirtiga yarka dhaanka wado soo ma jeedo hadda surwaalka yarka qaba wuu farqa wara surwaalka yarka qabo shan jirka markuu qori qaado waa kibrina nagu daayi tii kale ma xasuusto kale saddex shay u dhahay nimankii faraha la iska qaaday labadii qabiil dib dambe dhexood kama dhicin qof dambe iskama dilin isma aanaysan maxaa heshiisiyay odayaal geed ma fariisan oo intii odayaal geed fariisteen oo isu imaadeen ma la heshiisiin oo mal dhino maxaa dantii dhacday ba heshiisay marka waa dadkeenan waxaad ogaataa inaanay jirin dad daarooda oo cuqdad isu haya oo wax soo urursanayo waa nimankii magacyo badan ba isu baxshay dadaan kolay dad magacyaasha dad badan waa garanaya kolay dad badan baa garanaya laakiin wax taariikh waxa ka soo qaaday dadkeena daaroodka wax cuqdada isu qaba malahan waa la isdilay waa la isjibiyay laakiin waxa anaku dadka qabsan ma nihin waliba dadka ninka halka Axmed Xaashiyo nin halka hadlay dad magac ku hadlayeen iyo dadka lamidka dadka ku dhaga ma nihin oo wax u qabsan ma nihin wixii noo geyso wax ka daran baan geysanaa
وانا جيسني وانا لو جيس marka inta aan ugu ekeyn waan maasantii اوكي انا ما شاء الله ما بليز انا ما hadlin ina adeeray hal mar kaliya ida ما يسوس بكار يا حتى waayo laba kalmadaan dhahaya dhageyso ina adeeray horta meeshan daarodo dhan baa ku wada jira waxa dhacday aniga wiil ina adeerkay oo hadda halkan ku jira ayaa isoo wacay wuxuu islaanta waa islaan Cumar Maxamuuda waa la yaqaanaa nin reer mahadana waa qaba marka reerka ku socotay iska daa anu ninka hadda ma magacaabay uu isgaranaya meesha ku jira okay waxa reerka maxaad ugu socotaan in adeero naaga waxa jira horgal ah iyo naaga habar jecla ah iyo naaga jaamac siyaado habar jecladu qabto oo cid dadka caynaya waa ogtaa dhulbahanta kuwa jaamac siyaadka xaq ka soo jeedo waa ka soo horjeedaay in adeeray waa la caynaya cidda daa horta dhageyso waxaana arkaa ilaa hadda inuu ku socdo okay haba ku socdo wiilka in adeerkay wuxuu ugu socdo anigu ma aqaano waxaan marka garan waaye dhulbahanta maanta iyo harti anagu lama maamul baan rabnaa Siciid Cabdullaahi Danina afkiisu ayuu wuxuu ka yiri qaatumo iyo Buntland waxa lagu dagaalgalayna calanka qaatumo aha harti iyo waxa mareysay isaaq bay oo dhan bay mareysay marka in maadeerayaalo waxa meesha taala dadka tolkeena bariba wuxuu yiri waa wax soo laaban doona habrahan anaga inta dadkii soo wada qabsaday wiilasheedii galaafanaya oo Cumar Maxamuud ayagoo qabiil kasta leh ayagoo Cumar Maxamuud difaacaynin oo afkii Cumar Maxamuud ku hadlaya Cumar Maxamuudna dadka jiida ugu horeysa fadhiyo ay yihiin oo maalin walba ayaga aan iskala jawaabin heer waxaan gaarnay anaga aan iskala gurno heer waxaan gaaray aniga aan jifooyin laftigayga qabsado sababta maxay tahay ninaan anigu aqaano oo dariskayga ah markuu reer mahad sheegto oo ku abtirsaday maalintaas anigu qoostay waxaan war adigoo nugaal ka soo jeedo oo lagu yaqaano sababta anaga noo sheeganaysa maxay tahay habarta oo inta Twitter inta gashay si dhaba loo wareystay dhaysa aniga nugaal baan ka soo jeeda oo eel baan ka soo jeeda lagama hadlayo anagii baan ugu dhagay waayo ayadii baa shaati waxay soo degsantay Cumar Maxamuud baan ahay ilmo Cumar Maxamuudana waa dhalay kuwa Cumar Maxamuud oo niman aan waa la saarayeen nimanka kale waa is ilaaliyeen qabiiladooda ma sheegaan okay anagii kaliya aan ugu dhagay dakanada marka aad Cumar Maxamuud u keenaysaan oo xumaanta ah oo dadka kale aysan majartaanki kale Maxamuudkii Saleebaan kale aan lagu haysan ayaa horta anigu fahmi waay ilma adeerayaalo hadalka waa la gabagabo dadka tolkeena oo waa carraysu ina ku soo socdo arkay suuyo maxaad u carraysaa suuyo ha carari ina adeer islaamahan haday sirka hayaan noo sheeg haday lacagahan la bixinay ay wax ka soo gaareen wallahi waxaad u baahantahay ana kuula taagan runta markaan ku sheego ana kuula taagan ina adeerka la bixinay ay wax ka soo gaareen way maqlaysaa nin ina adeerka tahay uma baahnin anaga magacayaga kaligeen in la soo qabsado uma baahnin dadkayaga in la kala takooro anaga Cumar Maxamuud anahay dagaalka raac hore ku jirnaa Cumar Maxamuud waa dagaalka faca hore dhulbahanta aniga waa dhiigayga walaalkayga aniga ila dhistaa lugta u go'day waana garab taaganahay naaga jaamac siyaado horgal ahoo habar jecladu qabto TikTok soo galo caytamayna daayaka caytamaya waana taqaanaayo ina cali baasho nin dhulbahanta dilayay oo jaamac siyaada taagan ma fahamtay maanta ninka garabkeena taagan oo ka hadlayna waa nin jaamac siyaado dhahaya aniga nimanka halka iga jooga Hargeysa horgal ah laakiin se nimanka Buntland jooga waa niman Buntlandnimo ku jooga muxuu ahaay hartina aan wax kula qaybsanay marka ilma adeerayaal dadka haday sac wada socdaan oo firdhiye inta idin yiri maxaa intiisa fiican u qaadan weydeen intiin xun u qaadanaysaan suuya ku saaray suuyo in adeerkay baa tahay walaalkay baa tahay daris baa nahay personal baan ku aqaanaa magacaaga inaayahaaga abkay awoogaaba aqaanaa anna waad taqaanaa ina adeeru habraas inta soo saarto aad la jiibinaysid adoo nin walba ku yaqaano iska daa hoosta joogtaa waad aragtaa bilis jooji waayo qabiil kaliya oo la haysto Cumar Maxamuud bay dadku uga dhigtay dakanaan u sameynaysaa annaga dakanaha noo sameynayna erayada aad ka xumaateen idinka meeshaad ka keenteen idinka og dadku waana isdilay waana la heshiiyey dhulbahantii hore ma aha dhulbahanta nadiifa oo waxa soo baxay hartinimadu ka go'an tahay dad shisheeya shalay wax isku darsaday kadibna cadownimo 8 bilood aan u aabayeelino maatadoodii wax garadkoodii iyo jaamac ninkii la dhahay ii sheeg jaamac kaliye waa nimankii dilay ina adeero wajh nagama dhaxeeyo wanaagna nagama dhaxeeyo ilma adeerayaalow hana kala saarina dadkan hanaga tukoorina ummadan Cumar Maxamuud ku haysana
عمر محمود هدي أيسن كدجن شفا أنا أكوريا شفا والباص سوق بسنية هاي دهن عيسى محمود محكرته هاي دهن عثمان محمود محكرته صوبت علي السلام محكرته ما أنا بعد باص سوق بسنية maxaa keenay anoo ciise maxamuud u aqaano maalintuu cumar daacad uu yiri aniga naag nin reer mahad ah oo reer adan mahad ah oo reer warsame aadan ah subaxaasan go'aansaday aniga ciise maxamuud inaan koro oo caayo waxa keenayna anagana sheeganaysaan nin ciise maxamuud hadday takanada aad tolkaa kala cararayso tolkay ha u gelin dhulbaante runtaa laga hadlaya nin walbaan oo saasan ugu sheegaya maxaa kuu saaray habrahan aan la garanayn oo waxay yihiin haddaad tiraahdo abtisada aan abtisanayn oo qabiiladooda qarinaya oo ay afkooda ka leeyihiin nugaal baan ka soo jeeda habarta faa'iise ay leedahay haddana cumar maxamuud lugaha la soo galayso annaga markayna soo gashana sheeganayso dumaashadeena dhehayso annagu ma naqaan hadday daacad tahay ood buntland ay difaacayso buntland hawiya weerar ku ah waxa weerar ku ah is-irir oo dhan meel walbaa laga soo ha ka hadlaan laakiinse inaad harti maanta la isku keeno oo daaroodkii kale aan raadinayno oo maanta annaga labadii caasimadood beleeqadii iyo wax walbana lagu sameeyey ilaa haddana guryahayagii iyo degaamadayadii iyo reebaadiyahayagii iyo gudahayagii ay xabaddu ka socoto inaadna kala gurtaan ilma adeeryaal ha samaynina intaasaan idin leeyahay ninka suu la dhahayo hoos joogana habrahan hadday wax kale kaa hayaan la sheego haddii kalena tolkaa ka har inaadeen nin cumar xumuudaa tahay ninka suu la dhahayo duubtaa sheegteene cirka la aada an cid ba cashuun gu adimaa walna ani shan naagoodna waa iskaga adkahay ninna waa ka adkahay naag cumar maxamuud oo reer mahado aadan mahado halkaa fadhida ahay cidna cashuun guma adimo hadalkaysi in adeer hadalkaysi horta waa in salaamay sidoo ma itiri gabadhan waa gabadh cumar maxamuuda nin reer mahada qaba ka har ma itiri in adeer ii kaaday naagtaa sababtaa noogu qarisay maxay tahay ilaa naagtaa mar horaa iska laalaaday qolkay gashaba ka dabagel leheene haddaan kuu jawaabo hadda niciimo adiga hadalka markaa qaadato ma dhihi taqaana in adeer way naagaha caytama unbaa soo wadaa naagaha caytama waa jaamac siyaadi habar jeclo horta hadda waaye